kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeenu waaweynna waxa ay kala yihiin al-shabaab ayaa weeraro qaraxyo iyo dagaal toos ah ka geysatay muqdisho iyo balidogle warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa weerarada warar kale caawana waxaa ka mid ah gacalsugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan ayaa sheegay in uu qaadanayo mas'uuliyadda dilkii wariye jamaal khashoggi laakiin waxa uu beeniyey inuu bixiyay amarka dilka waa farsamo cusub oo qashinka u rogaya lacag muqdisho ayaa laga hirgeliyay warshad qashinka dib u farsamaysa oo dad badani ay nolol maalmeed ka helaan garoonka Old Trafford caawa waxaa isku arkaya Man United iyo Arsenal ciyaartooy muhiim ah ayaan caawa garoonka ka dhex muuqan doonin faaqidaadda ciyaaraha ayaanu idinku haynaa kala soco BBC News Somali Television raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed cabdi xalaal idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in laba weerar lagu qaaday ciidamada Soomaaliya iyo kuwa ajnabi ah oo iyaga taageera mid kamid ah weerarada ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Balidogle halka kalena la beegsaday kolonyo gaadiid ay leeyihiin ciidanka Talyaaniga weerarka weyn ee hore ayaa isagu ka dhacay saldhigga Balidogle oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose oo 100 kilomitir u jira magaalada Muqdisho waxa uu saldhiggaasi ku yaala degmada Walaweyn duleedkeeda saldhigga ay Mareykanku tababaro ciidamada Soomaaliya ku siiyaan waxay sidoo kale laga qaadaa saldhiggaasi weerarada xagga cirka ee ka dhanka al-shabaab ayaa sheegatay in dagaalku uu ku bilowday qarax laga soo buuxiyay gawaari kadibna dagaalyahanadoodu ay isku dayeen inay gudaha u galaan waxaana sheegteen inay geysteen khasaare dhimasho iyo agab ciidan isugu jira balse lama xaqiijin karo safiirka Mareykanka oo ka hadlay weerarka ayaa isagu ammaanay ciidamada Soomaaliya waxa uuna sheegay warbixin ay safaaradda soo saartay Mareykanka in aysan jirin khasaare ka soo gaaray labadii weerar ciidanka Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay weerarka waxa uu yiri kooxda naflacaariga ayaa saaka waxay weerar ku soo qaadeen xarun ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya deegaanka Balidogle dagaalkaas u sii weyn ma ahayna waxa uu ahaa dagaalada naflacaariga ee gaarida qarax ay ku soo weerareen alxamdulillah wax dhibaato ah ma soo gaareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wayna iska caabiyeen wax ka yar 10 daqiiqo ayayna ku soo afjareen maleeshiyadii isku dayday in bartaasi control ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay arbushaad ku sameeyaan aniga ilaa iyo hadda waxaan idin xaqiijinayaa in wax khasaare uu soo gaarin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya وهاجا هدابا محو كدغان yahay weerarkan al-shabaab ee isku xilliga lagu qaaday ciidamada ajnabiga waxa xarunta wararka ee BBC-da ku sugan Cabdisalaan Guulad oo ka faalooda arrimaha amniga Soomaaliya Cabdisalaan weerarkan maanta waa ka duwan yahay weeraradii hore xilliga la qaaday iyo meesha lagu qaaday maxaanu ku micnayn karnaa in al-shabaab awoodeeda laba lixaasatay masinayna fil caarita sidoo wasiir ku-xigeenku sheegay lama dhihi karo waa naflacaari de wax muujinaya naflacaari yihiin ma jiraan inay laba lixaadsadeen ayadana wax muujinaya ma jiraan laakiin waxa muuqata inay meelaysan hadda ka hortagin ay shabaab tageen waxayna talaabaysan qaadeen oo hadda ka hor marnaba ma aysan u suurtagelin inay soo weeraraan Balidogle ama ay beegsadaan ciidamadan maaragtay Talyaaniga oo kale hadda marka waxa muuqata inay istaraatiijiyad cusub ama tilaabo cusub ay qaadayaan oo ku beegsanayaan ciidamada tababarayaasha oo ciidamada Soomaaliya oo dabcan ay u arkaan inay yihiin qatarta ugu weyn hadda ay ku soo fool Cabdisalaan marka maxaa isleedahay waa maxay waxa u sahlaya in ay ciidamada beegsadaan oo la leeyahay waliba ciidan weyn iyo hub fara badan meesha ilaa al-shabaab meesha isku biimayso maxaa u sahlaya oo duwan sida ay weerarada u qaadi jireen haddaad fiiriso al-shabaab yani sida ay xariyaha kale ciidamada ku gali jireen xeradan kuma soo galin meelaha kale ay gali jireen ciidamo badan oo ilaa 100 gaari ama ka badan ay weerar ku soo qaadi jireen qarax iyo ciidan isdaba socdo oo ujeedadu tahay in meesha xoog ku qabsadaan meeshan marka ciidan aad u yar ayay ku soo weerareen laba baabuur oo qarax ujeedku marka wuxuu ahay in ay isku dayaan horta inay muujiyaan meesha inay weerareen miidiyada maanta ay headline-ka ka heestaan inay headline-ka ka galaan oo de adduunku oo aad u soo hadal qaado ayaa muhiimadda ugu weyn ee dad fiiriso sababta ay
u imaan waayeen inay gudaha u soo galaan meesha bayskan waxaad u malaysaa diyaar garow weyn inuu jiray oo dhul geedihii way ka baneeyeen bayskan Balidoogle dhul aad u baaxad weyn geedaha laga baneeyo ay suurtagal ahayn in maaragtay la iskaga soo dhuunto haddaad fiirisana waqtiga laftiisu wuxuu ku sheegayaa inay ku soo dhuumanayeen gaadiidka isaga socda xamar iyo baydhabo jidkaas dheer ee socda baabuurta socota waqtiga 4 saac iyo saacadaas waa saacadaha ay baabuurtu bilowdaan oo jidkaas qof kasta maro marka ay la soo jiireeyeen oo u soo leexdeen jidka u qaaska ah Balidoogle airport meesha la dhigi jiray markaasna waa marka ay isqarxiyeen oo dhaafi waayeen bartii ugu soo horeysay isbaarada u taalay ciidanka marka waxay yani wax weyn shabaab guul kama gaarin laakiin fariinay dirayeen oo ah waan cadow baan noo tihiin waana beegsanayna sababtuna waa iska muuqataa ciidamadan danab ayaa meesha base ku ah commandoska Soomaaliya danab la yiraahdo basekoodu meesha yahay Mareykanka oo ilaa 50 weerar oo cirka ku qaaday al-shabaab sanadkan ilaa dhowr boqolna sheegeen inay dileen basekoodu waa Balidoogle oo Africom ka baseki kulay marka al-shabaab waxay u arkaan inay qatarta ugu weyn ee culayska ugu weyn hadda qatarta ku haya oo yahay Balidoogle oo ciidamadan commandosta Soomaalida iyo kuwa Mareykanka waa garta Cabdisalaam hadii waqti u helana Balidoogle lafteeda ayaan wax ka weydiin doonaa laakiin xiriir ma ka dhaxeeya weerar kale iyada kolonyada Talyaaniga loo geystay kan waa ka dhaxeeya iskama dhicin baan isleeyahay markaad fiiriso Talyaanigu waxay ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga sida xogta aan ku hay waxa muuqatay inay warbixin daqiiqa ka hayeen al-shabaab markay soo baxayeen iyo meeshii u socdeen jidkay socdeen taas marka waxa weeyaan qorshe degsan oo ahaayo al-shabaab hore u soo ogaayeen dhaqdhaqaaqa iyo tababarka iyo ballamada ay ciidamada Talyaanigu lahaayeen marka waxaad malaysaa inay ciidamada tababarayaasha ah Soomaaliya ciidamadeeda tababaraya inay beegsanayaan al-shabaab maalmahan oo qorshe kale yihiin sidii u weeqi lahaayeen inaysan ku kalsooni helin ciidamadaas tababaraya Soomaaliya aad iyo aad u mahadsantahay Cabdisalaam Guuleed warbixinta aad naga siisay weerarada maanta ka dhacay Balidoogle iyo Muqdisho iyo bal markan hadii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa in ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay daadad waaweyn oo harqiyay gobolka waqooyiga bari ee dalka Hindiya Uttar Pradesh iyo Bihar boqolaal ayaa guryahooda laga daadguriyay mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in tareenada gawaarida baraha ciidamada iskuulada iyo xarumaha tamartaba ay daadadku saameeyeen maamulka Hong Kong ayaa qaaday tallaabooyin in ay ku horjoogsanayaan mudaharadyada dimuqraadiga ee sababaya in ay carqaladeeyaan dabaaldegyada Shiinaha ee toddobaadkan gurada xukunka shuuciga koox u dooda xuquuqda dadka ayaa joojisay barnaamijyo la qorsheynayay kadib markii ay Beelisko amar ku soo rogeen waxa la sheegayaa in la xiray 2 qof oo u ololeeya dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ee Hong Kong وهاجاج أمريكا دحل سجاها السعودية أيا أدقيا إن قيمها الشذالك أو أذكر أو كعدونه هدي الدنيا أي سنقادين تلابو لجوهر جوكسنا يو إيران isaga oo ka hadlayay ama la ka hadlayay weerarada lagu qaaday xarumaha saliidda Sacuudiga bishan horaanteedii weeraradaas oo ay boqortooyadu ku adeysay Iran Amir Mohammed bin Salman ayaa sheegay in haddii lagu fashilmo in Iran wax laga qabto ay horseedi doonto dagaal sida uu sheegay muuqaaladan oo aan horay loo arag ayaad ku arki kartaan ilbriqsiyadii ugu horeeyay ee gantaal iyo diyaaradaha aanu duuliyaha saarneen ay garaaceen xarumaha saliidda lagu safeeyay ee Saudi Arabia taas oo kala bar hoos u dhigtay wax soo saarka boqortooyada haddaba haddii aanu eegno qariidadani weeraradan ayaa dhacay 2 toddobaad ka hor 18 daroon iyo 7 gantaal ayaa lala beegsaday 2 kamid ah xarumaha saliidda lagu safeeyay oo ku yaala Abqeyq iyo Khurays isaga oo haddaba la hadlayay amiirka telefishinka Mareykanka ee CBS waxa uu sheegay in ay Iran ku dhagan tahay ama ay u dhaqantay wax axmaqnimo ah marka ay weerartay goobaha batroolka ee dunida ugu waaweyn أعتقد أنها حماقة. waxaan aaminsanahay inay tahay doqonnimo ma jiro hadaf istiraatiijiyeed kaliya doqon unbaa weerara 5% sahayda saliidda dunida ujeedkooda kaliya waa inay caddaystaan doqonnimo waana waxa ay sameeyeen
إذا لم يقوم العالم باتخاذ haddii aysan dunidu tallaabo adag ka qaadin si looga hortago Iiraan waxaan arki doonnaa xaaladda inay ka sii darto oo ay halis gasho dunida soo saarka saliidda iyo qiimaheeduba way carqaladoobi doonaan weliba si aan la malaysan karin oo aan weligeed la arag وهاجاج marka uu waraysigan siinayay CBS Amir Mohammed bin Salman ayaa sidoo kale ka hadlay dilkii Khashoggi oo ahaa saxafi Sacuudi u dhashay oo dawladda Sacuudiga dhaleeceyn jiray kadibna lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee dalka Turkiga sanad ka hor toddobaadkan markii la weydiiyay cidda amarta dilka Khashoggina sidan ayuu Amirku ku jawaabay بلا شك لا maya taasi waa dambi guracan balse aniga ayaa mas'uuliyaddeeda qaadayo maadaama aan ahay hogaamiyaha Sacuudiga waliba maadaama ay geysteen shakhsiyaad dawladda u shaqeeya warbixin gaar ah oo ku saabsan dilkaasina Aisha Afrax ayaa inoo haysa sanadka hor 2 bishii Oktoobar waxaa gabi ahaanba la waayay Jamaal Khashoggi kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul waxay markaa kadib dhacay waxaa lagu ogaaday cod ay si qarsoodi ah sirdoonka Turkiga u duubeen ayagoo qoslaya ayaad maqli kartaa wadna haysa way sii ogaayeen inuu ninkan iman doono oo la dili doono qaranka Britishka ah ee Helena Kennedy ayaa ka mid ah dadka tirada yar ee dhageystay codka dilkiisa xafiga naxdinta ay leedahay inaad dhageysanaysid codka qof ay cabsi hayso naxdin ayaad la jirroonaysaa Helena Kennedy waxaa loogu yeeray inay ku soo biirto koox ay hogaaminayso Agnes Callamard oo qaramada midoobay u qaabilsan dilalka sharci darrada ah codadkan qarsoodiga lagu duubay ayaa laga maqli karaa wixii ku dhacay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda dhexdeeda wuxuu leeyahay ma lay afduubaya sidee taasi safaarad oga dhici kartaa codadka la maqlayay markaa kadib waxay tilmaamayeen in neefta lagu dhajiyay waliba bac ayaa loo adeegsaday wali waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka waaniga waa maxamed cabdi xaraare balaadan xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn xogaga al-shabaab ayaa weeraro qaraxyo iyo dagaal toos ah ka geystay Muqdisho iyo Baladogle dhacal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa sheegay in uu qaadanayo mas'uuliyadda dilkii wariye Jamaal Khashoggi laakiin wuxuu beeniyay inuu bixiyay amarka dilka وهاجاج qashinka caagadaha ah waa mid waxyeeleeya deegaanka iyo bilicda magaalooyinka haddaba Muqdisho dhalinyaro ku nool ayaa la yimi fikir ah in laga faa'iideysto caagadaha qashinka iyaga oo sameeyay shirkad dib u habaysa qashinka caagadaha oo qalab waxtar leh u bedesha beela sheego ayaa inoo haysa dumarkan waxay shaqo adag ka soo qabteen goob lagu soo daadiyay qashinka magaalada waxay sitaan caagado ay kala soo bixin qashinka marka ay halkan keenaan waxaa looga iibsadaa 3,000 oo shilin Soomaali ah kiiladii celcelis ahaana waxay ka helaan maalintii 70,000 ilaa 150,000 oo shilin oo ay noloshooda ku dabaraan meesha tagayna meesha oo qashinka oo jasiiro aan tagayna waa kasoo aruurseena meel iska dhigayna moota tuugeena baawaraan tuugeena haddii noo ogolaadaan waa kasoo qaadayna haddii kalena waa iska sii soo lugeena bundada kusoo shuweena inta keensadayna waa nala cabiraan waxaan alxamdulilah rabbil caalamiin ilmahaayaan isku nooleysana dhib way horta socodka iyo baaritaanka iyo wixii dhib waaye laakiin markaan soo helno oo soo baxno meesha keensano magaciisa caagada waa noola miisaamaa
macnaha 140 boqol 80 70 maasha Allah aniga xaaskayga nagu filan tahay caagadaha oo ka kooban noocyo kala duwan waxaa loo soo gudbiyaa halkan oo ah bilowga shaqadan qashinka dib u warshadaynta inkastoo shirkadan ay ku tiirsan tahay caagadahan haddana waxaa jira waxyaabo kale oo lagu daro sida ciid iyo walxo kale oo kiimikaal ah oo la isku dheeli tiro waxay qashinka aan waxtarka lahayn ka soo saaraan qalab waxtar leh oo lagu dhiso guryaha shaqaalaha ka shaqeeya warshadan celcelis ahaan maalin kasta waxay soo saaraan 1500 ilaa 2000 oo wax soo saar ah dib u isticmaalka qashinka waa mid aan aad looga aqoonin Soomaaliya balse hadda waxa muuqato in qashinku uu shaqo abuur u noqday dad danyar ah qaab ganacsi looga faa'iideysanayo halkii uu dhibaato keeni lahaa waxaan ogaanay marka inay qashinku uu dhibayo magaalada banaankeeda markii la geeyay beecadii sida daraaddeed marka fikir waxaan ugu dhashaa qashinkan ayaa dib loo isticmaali karaa kadib waxaan samaysanay maashiino macmala oo ku saabsan sida aan soo saari lahayn antarlooga dhulka la dhigto iyo jaliga guryaha la saarto kadib waxaan noo hirgashay inaan samaysano warshadan hadda u jeedaan baaxadda leh ee qaybaheeda kala duwan muqdisho ah magaalo dib u soo kabanaysa dhanka dhismaana horumar baaxad leh ka sameynaysa ayaa ka faa'iideysiga qashinka wuxuu tallaabo fiican u noqon karaa soo celinta bilicda magaalada beelasheegu BBC muqdisho وهاجاك بل إمكانه وفاقدات عيارها إسنين توحى هاي عثمان عبد حسن عثمان وحن في عياري الشلي كوي الضرات كوي مانتا وحنا بيننا سوق هاي دردون dhamaan waxa dhawaan haya ciyaaraha horyaalka Ingiriiska oo inoo yaalan laakiin dooxa ayaa waxa ka furmay tartan orodada iyo ciyaaraha fudud oo dhan isugu jira balse aan ku hormaro qodobada wararka ugu waaweyn ee maanta caawa horyaalka Ingiriiska garoonka Old Trafford waxa isku arkaya Manchester United iyo Arsenal waxa suuragal ah in Man United ay ka maqnaan doono Anthony Martial iyo Rashford Mason Greenwood ayaana bilaabaya lugtii ugu horeysay xilli ciyaareedkan Arsenal Alexander Lacazette ayaa isna la filaya inuu ka maqnaan doono inkastoo marka la safta la arki doono Dina Asher Smith ayaa rikoorkeedii hore ee Britain jabisay iyada oo orodka 100 mitir ee degdega loo ordo ku orday 10.83 ilbiriqsi waxa ay heshay bilad qalin ah waxa ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Britain ah ee tartanka orodka degdega loo ordo kaalinta koowaad ka gasha ilaa iyo markii Kaati ku 1983 hadda waxa ay xoog saari doontaa 200 mitir tartanka baawurada Formula 1 Lewis Hamilton ayaa hadda ku horeeya 73 dhibcood kadib markii uu ku guuleystay tartanka Sochi ee Ruushka Valtteri Bottas oo ay isku kooxda Mercedes ka wada tirsan yihiin ayaa laba galay halka kaalinta saddexaad uu galay darawalka Ferrari iyadoo ay harsan tahay 5 tartan waxa suuragal ah in Hamilton uu ku guuleysto koobkii lixaad marka uu dhaco tartanka Mexico ee 27 bisha October tartanka ciyaaraha fudud ee adduunka ee ka socda magaalada Doha wadanka Qatar xilli habeenbar ah ayuu tartanka furmay iyadoo heerkulkana uu gaarayo 32 darajada centigrade la yiraahdo inkastoo ay jirtay cabsida kulaylka laga qabo haddana qabanqaabiyaashu waxa ay go'aamiyeen in ciyaaruhu ay socdaan markasii horeysana xiriirka ciyaaraha fudud ee adduunka waxa ay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in ay qabteen wax kastoo ay ku yareen kareen qatarta kulaylka haddaba magaalada Doha waxa ku sugan wariyaheena Cabdiraxmaan Bidhaan oo goor dhaweyd warbixintan halkaas nooga soo diray Cismaano ciyaarihii si habsamile ay u socdaan maalintii afraad ee ciyaaraha Doha 2019 waa ciyaaraha fudud ee caalamiga ah ee Doha 2019 oo runtii aad moodo in kulaylka iyo hawaduba ay saameyn ku yeesheen laakiin saaca waxa loo diyaar garoobayaa oo iyaduna aad u kulul ciyaarta 5,000 mitir oo ay 3 nin oo Ethiopian isku haystaan ciyaartaas oo hore u haysan jiray Mo Farah ayaa la eegaya badcida dhaxli doonta waxa kale oo isla ku jira Maxamed Axmed oo laakiinse dalka Canada u ordaya waxa kale oo iyaduna xalay dhacday taariikh dalka Burkina Faso ayaa waxa uu helay markii ugu horeysay bilad uu ka helay tartan caalami oo sidana waxaana heleen bilada xagga bootinta inkastoo ay qalin lahayd haddana waxa uu ahay taariikh dheer weli lamaana kulmin ciyaartoy Soomaaliyeed oo halkan tartanka ka qayb galaya laakiinse waxa la kulanay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qadar degan oo iyagu taageeraya ciyaaraha qadar lagu qabanayo Doha 2019 wallahi billahi horta ciyaarahan aan aad u taageersanahay waan ku faraxsanahay ciyaaraha inaan ka soo qayb galo koos waxa muddo badan baa sugay ma garanaysaa marka waxa waaye waa dareemi kartaa shacairteeda
ciyaaraha inta ciyaartooy Soomaaliyeed magac Soomaaliyeed ordays horta ma arag laakiin qof Soomaaliyeed dalka oo arday isheeg waa arkay wallahi ciyaaruhu waxay qadar aad iyo aad baa loogu sii diyaar garoobay bariyahanba waxay dhacayaan habeenimo dadku aad bay ugu daawasheeynayaan aad baan u xiiseynaynaa inaan u daawano insha Allah inkastoo xilligii kulayluhuna aad u soo yaraanayo waxa la ordaya habeenimo waxaan rajaynaynaa inay si fiican u dhacaan si kastoy tahayba ciyaarahan waxaad og tahay in saxaafaddu ay qorayso caalamigii in dadku aanay garoomada u soo buuxinaynin ama garoonka Khalifa aanu joogno iyadoo la leeyahay dadka waddanka degan ayaan aad u xiiseynin ama hawada ayaa iyaduna qayb ka ah waxa kaloo iyaduna jirta in xagga maaragtay hawaduna ay weligeedba saameyn halka ku lahayd waxaasoo dhan oo la isku daray haddana dawladda qadar weyn dadaashay guuxa aad maqlaysaan oo dhammi waxa weeyaan waa airconditionada waaweyn qaboojiyaasha waaweyn ee halka lagu rakibay maalmaha soo socda waxaan la kulmi doonaa ururka ciyaaraha fudud ee dalka Djibouti iyo madaxdooda iyo ciyaartooyga reer Djibouti ee iyaguna ka qayb galaya tartankan waa mahadsantihiin Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir BBC Doha Qatar tartamadaasina barnaamijyadeena dambe ayaa ku maqlaysan ciyaaraha dambena markana kubadda cagta horyaalka Ingiriiska shalay idaraad ciyaaro kulul ayaa dhacay caawane mid kale ayaa dhici doonta Manchester United Manchester ayaa la dheelaya iyo Arsenal ayaa wada ciyaaraya qadka toos waxa ugu jirta Caasho Kiin Nasrakiin Nasro ciyaarta caawa dhacaysa Arsenal iyo Manchester United maxaa la filayaa inkastoo qolo walba ay sheeganayso in taageerayaasha Manchester United waxay leeyihiin dhowr qof aan naga fadhisa Arsenal sidoo kale waxbay sheeganayaan inkastoo gurigoodii lagu dheelayo Man United maxaa la rajaynayaa caawa kooxda kubadda cagta Arsenal waxay booqanaysaa gegida Old Trafford sheegtay muddo 13 sano ah kumaysan badin garoonkaas waa caqabad ugu weyn ee kooxda Arsenal ka haysata halkaas Manchester United walow ay ka maqan yihiin weeraryahanadii Martial iyo sidoo kale Rashford haddana kooxda kubadda cagta Arsenal daaficeedu aad u liito oo cabsi badan ay ka qabeen taageerayaasha kooxda dhanka weerarka Manchester tani waxay u tahay farxad kale maadaama weeraryahanadii ay dhaawacyo ku maqan yihiin Pogba laftirkiisa anqawga uu dhaawac ka dareemayo oo la filanayay inuu si wacan u dheelo laakiin kooxda kubadda cagta Arsenal waxaa nasiib wanaag oo dib ugu soo noqday daafacyadii da'deera Rob Holding Kieran Tierney Hector Bellerin haddii uu tababaruhu shax wanaagsan ku soo galo waa Unai Emery Arsenal halkaas waxaa uga furan Janis inay soo gabagabayso 13 sano oo guuldaro la'aan ah guusheedii 84 ay ka soo qaadato kooxda Manchester United wala Manchester aan la dheelsan karin waayahan guuldaro xun ay ku dhacdaysay galabta ama caawa laga filayo inay guul gaarto si taageerayaasha moralkooda ay dib u soo celiyaan oo kooxda ay dib ugu soo noqoto tartamada horyaalka dalka Ingiriiska haddana ma sahlan ciyaarta caawa waa kulan xiiso badan waa kulan kamid kulamada ugu awood badan ama ugu adag horyaalka dalka Ingiriiska oo labada koox awood badan ay ku xifaaltamaan sanadkiiba laba jeer waa tahay Nasrakiin annagoo wali ciyaarihii ku jirna ciyaar kala shalay dhacday midaan caawan arki doona saacadii barnaamijka markaan ka baxno ayay bilaaban doontaa kulay taageerayaashana waa isii diyaarinayaan Leicester City iyo Newcastle 5-0 ayay Leicester ku badisay xagee sanadkan Leicester u socotaa kaalinta saddexaadna way ku jirtaa Leicester City sanadkan waxdara ayay dhigaysaa Tottenham ayay ka soo talaabsatay Newcastle ayay 5 gool ku dhufatay saad ka dhawaajisay waxa ay aad u leeyahay yihiin taageerayaasha Premier League Leicester oo dib u soo rogaal celinaysa walow aysan soo wareegsan ciyaartoy aad u tayo badan oo Ayuso Beres oo ahaa ciyaaryahanka ugu magac weynaa oo ay xilli ciyaareedkan soo iibsadeen oo Newcastle laftirkeeda ay ka soo qaateen haddana Leicester City waxa ay muujinaysaa awood iyo weerar Jamie Vardy oo dib ugu soo noqday uloolamid horyaalka goolalintiisa iyo ciyaartoydooda kale oo aad u diyaarsan sida Maddison iyo daafacyadooda aad u adag laakiin haddana kaalinta saddexaad oo ay 14 dhibcood leedahay ku jirto taasi kama dhigna inay u tartami karto horyaalka dalka Ingiriiska Leicester maxaa yeelay xili ayay si irduufa ku qaaday hadda laakiin kooxihii dhamaan ayaa diyaarsan aad baad u mahadsan tahay Nasrakiin Xaashi Nuur ayay ahayd oo ciyaaraha ka faaloota Maxamed ciyaarihii inta ay nooga egyihiin caawa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cusmaan iyo Nasraba Xusno wararka ugu dambeeya BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aanu mar kale dib u kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo